Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya xilligan in qarka uu saaran yahay in uu xirmo cisbitaalka weyn ee degmada Afgooye. Cisbitaalka ayaa waxaa adeegyo kala duwan oo caafimaad u soo doonta bulshaweynta ku nool ilaa 50 tuulo oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cisbitaalka ayaa daboola baahiyo kala duwan oo ay qabaan dadka bukaanada ah ee ku nool deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. waxaana xilligan cisbitaalka ku jira qaar ka mid ah bukaano qaba xanuuno kala duwan oo dhaqaatiirta caafimaadka cisbitaalka degmada Afgooye ay la tacaalayaan sidii ay u baxnaanin lahaayeen xaaladda dadka bukaanada ee cisbitaalka ku jira. cabashooyin ayaa iminka ka imaanaya maamulka iyo dhaqaatiirta cisbitaalka degmada Afgooye taasi oo ku aadan in cisbitaalka uu waayo adeegyadii uu ka heli jiray hay'adaha qaarkood ee arrimaha caafimaadka ka shaqeeya kuwaasi oo isaga soo baxay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. haddaba cabashada maamulku uu qabo iyo sida ay xaaladda cisbitaalka ahaan doonto haddii kaalmadii laga heli jiray hay'adaha laga waayo waxaa warbixintan soo socota ku eegaya wariyahayaga Cabdiweli Cali online oo si gaar ah u eegi doona xaaladda cisbitaalka degmada Afgooye. 19 bisha September ee sanadkan waxaa gabi ahaanba xirmaya cisbitaalka dhexe ee degmada Afgooye kaas oo gabi ahaanba ay faarujiyeen hay'adihii cisbitaalka gacanta ku hayay. haddaba maxay ka dhigan tahay in albaabada la iskugu laabo isbitaalkan oo ah xarunta caafimaad ee kaliya ee ay ku xiran yihiin in ka badan dadka ku nool 500 oo tuulo oo hoos yimaada Afgooye waxaana arintaas hordhigay agaasimaha isbitaalka dhexe ee Afgooye Nuur Cumar Mayow oo aan maanta xafiiskiisa ku booqday. bismillah marka hore aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaa booqashadan Universal TV gaar ahaan wariyaheeda Cabdiweli online waqtigiisa uu soo siiyey howlaha danta guud ee degmada Afgooye qayb ka mid ah inuu maanta bulshada u baahiyo waana arin aad i farax gelinayso sababtoo ah xaaladda oo isbitaalka maanta uu ku jiro ayaa ah xaalad u baahan in arrimihiisa la bandhigo si baahiyaha jiro wax loogu qabto. isbitaalka imanka agaasimaye baahiyaha gaarka ee haya maxaa ka mid ah? bismillah isbitaalkan horta waa isbitaalkii degmada Afgooye markii ay dhacday dowladdii dhexe kadib NGO oo relief ah oo yaryar ayaa soo gaaray muddo kadib waa iska istaageen waxaa dhacday 2005 inay u kaceen dadweynaha degmada Afgooye iskuna dayeen inay dib isbitaalka u furaan waxqabadkii oo bulshada ay waday ilaa ay xad laga soo gaaray 2007 iyagaa isku tashtay iyagaa dhaqaajinaya howlihii ka socday waxaa dhacday 2007 waxaa hawshii gacanta ku dhigay oo supporting ah MSF Swiss wadanka oo dhan waxay ka baxday 2013 bishii August 14keedii wax yar isbitaalka gaab u galay November 2013 waxaa iyadana support ku bilowday bisha Casqadar QRC sanadkii ugu horeeyay 2014 wuxuu ahaa sanad sal u dhigis ah shaqada rasmiga ah waxa ay bilowday QRC 2015 shaqadaasi waxay hadda ku ekaatay 2018 December 31 sanadkan aan ku jirno 2019 qayb ka mid ah shaqadii ay haysay ee QRC ka haysa isbitaalka qaybaha kale oo dhan oo baahida isbitaalka ahaa uu banaayay serviceyada awal markii hore la qaban jiray wuxuu ahaa bukaan socodka emergency-ga dadka daawo lacag la'aan heli jiray shaybaar sidaas oo kale oo lacag la'aan ah MCH maternity qaybta dhalmada jiifka oo leh dad weyn iyo dad yar intaba howlahaasi socday maanta waxaa ka soo haray kaliya qaybta dhalmada hooyada uurka leh iyo dhalmada marka taas waxaa dareemaysaa
magaalada magaalo aada u weyn waaye bulshadana ay aada ugu badan yihiin oo xaafadaha isturfuur loo degan yahay tuulooyinka ilaa 200 ay kor u dhaafeen degmooyin kaloo darisnala ah oo ayagana isbitaaladooda aanan shaqaynin oo iyagana usoo hirta dadka reer guuraaga ah ee baadiyaha oo hadda isbitaalka runtii ku xirmay oo baahii weynaa oo isbitaalku uu qaban jiray haddana qaybo badan ay ka maqan yihiin marka isbitaalka waxaan leenahay hadda keliya hashaas howl ayaa ka socoto suuragalna ma ah inuu howshaas keliya kusii taagnaado sababtoo ah dhammaan qaybaha oo caafimaad ka shaqeeya degmada dabcan waa health centero yaryar waxay shaqeeyaan maalin night shift ma shaqeeyaan night shift waxa kaliya shaqeeya waa isbitaalka weyn qof walba oo dhibaato dareemo wuxuu la soo ordaa isbitaalka kana bartay adeegii oo horey u socon jiray laakiin maanta inta badan aanan ka socon marka arintaas waa arin runtii dhibaato ba'an ku hayso isbitaalka qayladhaan nooma yara haddii ay ahaan lahayd maamulka degmada waa gaarsiinay haddii uu ahaan lahaa maamulka gobolka sidoo kale wasaaraddii caafimaadka sidoo kale dadka dhalinyaro qurba joog ah oo degmadan kusoo waxbaratay sidoo kale waa la xiriirnay waa jirtaa waxyaabo naga soo gaargaaray magaalada ganacsatada shirkadaha iyo wixii laakiin dhab ahaantii wax ku filan isbitaalka ma ahan waxna uma qaban karo duruufta uu isbitaalka ku sugan yahay maalintii arbacadii uu nagu soo dhaweyd iyo jimcihii ku xigayba qaraxa dhacay ma malaysan kartanaysaa isbitaalkan iyadoo uu ku yaalo degmo populationkeeda lagu qiyaasay 85,000 in ka badan marka hareeraha tuulooyinka lagu darana ay kasii badan yihiin beeraleyda oo maanta wadanka ka jirto beeraleyda ugu yacni wax soo saarka badan inay yihiin inkastoo maalmahan ay duruufo adag ku jiraan waxaan ku shaqaynay faasha deen ah oo farmasiyo uu naga rabo arbacadii laga soo tagay runtii waa nasiib daro weyn marka waxaa jirta hadda isbitaalka mardhow qaybta waqooyi oo dhan darbiga ku wareegsana wuu dhacay maanta haddii uu webiga hoos u dhaco oo biyaha uu wado ay ka dhammaadaan sida maalmahanba caadada u ahaan jirtay ma jiro derbi ka xiga isbitaalka dhinacaas webiga waxaa jiro derbiyada koonfur iyo bari ka xigana waxay ku dhow yihiin inay sii dhacaan mana taagmi karaan muddo ka badan 6 bil ama 4 bilood agasine marka laga soo tago jaadiyadaha oo siidayna waxyaaba aan markaasi baahi dabooli karin ee kaga soo jawaabay maamulka degmada iyo kan gobolka wax waa meel ku soo celiyay may ilaa iyo hadda maamulka degmada iyo gobolka waxay leeyihiin arintaas waa isgaarsiinay waa u imaanaynaa arintaasna waxbaan ka qabanaynaa wixii karaankeena ah wixii annaga naga badanna waa gudbinaynaa waxaanan ahayn rajogelin ma hayno haddii hay-ado oo wax qabanaya ay ahaan lahaayeen iyo haddii maamulada degmo iyo gobol midkaba ay ahaan lahaayeen iyo dadka ganacsatada iyo beeraleyda degmada oo aan u samaynay fadhi ilaa ay haddana nasiib darro ma suuragelin in baahiyaha jiro qaarkood wax laga qabto waxaa jiro dhalinyaro aqoon-yahano ah degmada ka soo jeeda degan xamar qaarkood ay waxbarasho u joogaan qaarna ay ka shaqaystaan ayaa waxa awoodooda markaas ahaa yacni soo taakuleeyay isbitaalka taakuleyntaasoo ah reagentska yacni kiimikada wax lagu baaro ee shaybaarka muddada sanadka ka dhiman ayay naga bixiyeen waa arrin aada iyo aad aan uga mahad celinayno laakiin isbitaalka baahadiisa ma ahan baahi oo dhow
mana ahan baahi hal mar inta la saboortin gareeyo oo wax ku tari karto waa baahi joogto ah isbitaalkan wuxuu qaabili jiray 100 ruux oo OPD ah oo bukaano ah iyo emergency celcelis marka uu dhaho 20 ilaa 25 maanta bukaanada degmadii hareeraheeda waxay ku baraarugeen oo ay ogolaadeen oo ay barteen oo horeyna aysan ka saynin baahiyo isbitaalka uu daboolay oo waxaa ka mid ah in dadka dhiig lagu shubo way ku adkaan jirtay maanta alxamdulilah dadku way wada aamineen inta badanna dadka hareeraha degmada ka imaado iyo qaar magaalada gudahooda ah celcelis waxaa dhacayso in bishii lagu shubo ilaa 20-30 ruux oo dhiig lagu shubo waa kartay agaasimo 250 tuulo afgooye hoos timaada iyo degmada afgooye shacabka ku nool isbitaalkan ayaa oo isbitaal ah haddii hadda gacan la helin isbitaalkan cid gacan ku qabata maxaa ku dambeyn doonaa mustaqbalka isbitaalka dhexe afgooye haddaan war kugu celiyo isbitaalka haddii oo registerka patientiga soo booqda aad fiirisid waxaa ku jiro janaale qoryooley tortorow awdheegle tuulooyinka zoona balcad iyo dhammaan tuulooyinka afgooye hoos imaada iyo degmada haddii ay dhici wayso in isbitaalka ay ka tashtaan dadka baahida gaarka u qaba ee degmada degan iyo dadka kale oo xiriirka la leh sida wasaaradda ay tooska u qusayso oo wasaaradda caafimaadka ama heer gobol ama heer state ama heer federaal oo aan dareemayo inaanan culays badanba isbitaalku uusan ku hayn inay wax u qabtaan iyo maamulka degmada oo aanan focuska u saarnayn in isbitaalkan wax laga qabto waxaa dhici doonto December 31/2019 waxaa completely dhamaanaya adeega isbitaalka hadda uu wado inuu xirmo isbitaalka afgooye ayaa ka dhigan in dad badan ay u dhintaan daryeel la'aan waxaana iminka la gudboon guud ahaan shacabka degmada afgooye inay u istaagaan gacan qabashada isbitaalkooda walow laga maarmaan ay tahay kaalinta maamulka degmada cabdiwali cali online barnaamijka bandhiga TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose wagaag daawadayaal aad buu maasan yahay kaas wuxuu ahaa wariyahayaga cabdiwali cali online oo soo koobayay waraysi uu la yeeshay maamulka cisbitaalka degmada afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose goor waxaan idinku duubi doonaa